dowladda Turkiga ayaa cadaadis ay kala kulantay reer galbeedka kadib waxay si toos ah u qaaday tallaabooyin ay ugu dhawaanayso dhinaca mucaaradka kuwaas oo dhabar jab ku ah Xasan Sheekh Maxamuud Culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya. Safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa culays ay kala kulantay qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka kadib waxay si toos ah ula kulantay dhinacyo ka tirsan mucaaradka Soomaaliya. dhinacyadan oo matalayay mucaaradka ayaa kulan gaar ah safiirka Turkiga kula yeeshay gudaha safaaradda waxay si toos ah ugu dhaliileen safaaradda Turkiga inay u arkaan inay dhinac ka tahay dhinacyada ishaya ee Soomaaliya isla markaana ay dhinaca Villa Soomaaliya u janjeerto. sidoo kale dhinacyada mucaaradku waxay Turkida ku eedeeyeen in taageero toos ah ay siiyaan Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda sharciyadiisu ay dhamaatay, balse safiirka Turkiga ayaa si adag uga cudur daartay kulankii dhawaan uu la yeeshay Xasan Sheekh Maxamuud. wuxuu sheegay inuu la mid ahaa kulamada kale ee safiirada reer galbeedka iyo wadamada Soomaaliya daneeya ay Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dawladdiisu aysan dhinacyada Soomaalida ee ishaya faragelin doonin isla markaana khilaafka aysan qayb ka noqon doonin. wadada kaliya ee u furan Turkida waxa uu ku sheegay inay tahay inay dhexdhexaadiyaan dhinacyada ishaya haddii loo baahdo. sidoo kale safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa si toos ah waxa uu ugu dooday in Xasan Sheekh Maxamuud kulankii ugu dambeeyay ee uu la yeeshay uu si rasmi ah ula wadaagay in loo baahan yahay in xaaladda dalku aysan faraha ka bixin waqtiga kala guura lagu jiro isla markaana si walba oo nooc doorasho oo la isla ogol yahay loo aadi lahaa loogu jihaysto. safaaradda Turkiga ayaa waxay ku qarcisay dhinacyada mucaaradka inay cadaadisyada iyo eedaha ka yareeyaan dhinaca Turkiga, waxayna sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkidu ay diyaar u tahay inay dhexdhexaadiso dhinacyada isdiidan ee Soomaaliya. waxa sidoo kale safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo si toos ah mucaaradka ugu fidiyay casuumaad wadanka Turkiga ay ku tagayaan xubno matalaya mucaaradka si wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan ay uga hadlaan qaabka loo dhexdhexaadin karo iyaga iyo Villa Soomaaliya nooca doorasho ee rabaan dalka inay ka dhacdo iyo heshiisyada la gaari karo. safaaradda Turkigu waxay sidoo kale cadeysay inaysan wax dhaqaale ah ku bixin wax taageerana siin noocyadii doorasho ee ka dhacay gudaha dalka, sidoo kalena aysan waxba ka ogeyn wax ka beddelka iyo falaadka lagu sameeyay arrimaha dastuurka, balse waxay sheegeen hadda diyaar inay yihiin in la aado xilli kala guur iyo waqti doorasho iyaguna ay si toos ah uga qayb qaadanayaan wada hadallada iyo isku keenida dhinacyada siyaasadda Soomaaliya isku haya. mucaaradka ayaa aqbalay casuumaadda wadanka Turkiga. dhowr xubnood oo matalaysa mucaaradka ayaana gaaray gudaha wadanka Turkiga halkaas oo wada hadallo hordhac ah ay ku la yeelan doonaan saraakiishan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga. tallaabada dowladda Turkigu ay ugu dhawaatay mucaaradka waxay qalqal ka abuurtay gudaha Villa Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rumaysan arrintan inay isaga ku tahay dhabar jabin toos ah, wuxuuna u sheegay dhinacyo ka agdhow in heshiiskii Turkiga uu la galay ay uga baxeen, sidoo kalena uusan filayn xilligan inay garabkiisa ka baxaan. waxaa sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in shaki weyn uu ka qabo dowladda Jabuuti iyo noocii heshiis ee uu la soo galay ee la xiriiray inay kala shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka iyo cadaadiska caalamka in laga yareeyo. wuxuuna sheegay Jabuuti inay isku seegi doonaan arrimaha dowlad goboleedka Galmudug oo mar hore Saadiq John oo ah ergeyga iyo ninka Soomaaliya Jabuuti ay ka dhageysato hadda warkeeda ay isku khilaafeen. wuxuuna arkaa mar haddii Saadiq John ay kala tageen in geelana ay kala tageen. tani waxay ka dhigan tahay Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii sharci darrada uu ku joogay Villa Soomaaliya waa ay soo dhamaadeen, mucaaradkuna god walba oo u galay waa ay ka saarayaan.